kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada ugu heerana waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay dagaalo markale dib ugu qarxa deegaanka iyo Soomaan ee gobolka Hiiraan halkaas oo dagaaladaasi qarxayna laga soo sheegay khasaare kala duwan isku jira imishii dhaawac waa daawo doontaan waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa caafimaad taamaalaha siiyay dhakhtarkii caanka ahaa Dr. Xabeeb ayaa markaasi la ilmeeyay xanuun daran oo soo wajahay xaaladiisa caafimaad dhakhtarka oo laga deerinayo iyo caafimaad dibadda oo dalbaday in loo gurmado waan idin soo gudbi doonaa dhakhtarkii u miciina jiray dadka dhibaataysan iyo kuwa markaasi tabarta daran ayaa maanta u baahan gargaar dowladda federaalka Soomaaliya maxay uga aamusan tahay codsiga dhakhtarka iyo shacabka Soomaaliyeed oo gurmad xoog leh u fidinaya durbadiiba Dr. Xabeeb waa daawo doontaan xanuunkiisii sida loo hayo waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa dowladda Soomaaliya ayaa silma fiican suuqgeyn bilaasha ugu sameysay dagaalamayaasha Al-Shabaab laba suuqgeyntaasi maxay tahay waa daawo doontaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu shaaciyay inuu qaatay shahaadada PhD-da oo ah mid ugu sareysa dhanka waxbarashada jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay war qoraal ah oo lagu baahiyay madaxtooyada ayaan idin soo gudbi doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa wararka kale caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad nagu soo subscribe kana soo balka nafro una si share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like inoo ribaya aad baad umaasantiin markaana waxaa weli magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ku xiran xogayaha ururka SJS ee suxufiyiinta Soomaaliya Journalist Syndicate SJS Cabdalla Muumin wararka ka imaanaya ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa shalay gelinkii dambe ka qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho xilli uu safar u ahaa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ujeedada ugu weyn ee u qabteen ciidamada NISA weli faahfaahin kama aysan bixin dowladda war laga soo saaray ma jirto hase yeeshee waxaa la fahansan yahay in Cabdalla Muumin oo ah xogayaha ururka SJS in markaas uu dhawaan ka hadlay hadalkii ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka warfaafinta Al-Cadaala ee ahaa inaan la baahin karin wararkii la xiriira Al-Shabaab beddelkeedana Cabdalla Muumin wuxuu sheegay in hadalkaas uu halis ku yahay saxaafadda madax bannaan iyo xurriyadda iyo wariyaasha qaybahooda kala duwan ee madaxa bannaan ee Muqdisho ku nool iyo gobolada dalkaba Cabdalla Axmed Muumin ayaa markaas xogayaha ururka SJS ee suxufiyiinta isagoo si weyn ugu dooday suxufiyiinta dhibaatooyinka duwan loo geysto tani waa tacaddi weyn oo dadka shacabka iyo suxufiyiintaba durbaba ay wajahayaan gaar ahaan suxufiyiinta Soomaaliyeed handadaada iyo xarig iyo cagburinta dowladda ay ku hayso saxafiyiinta madaxa bannaan ayaana mar kale bannaanka yimid nidaamka hadda jira ee dad muujadiin ayaana durbadiisa bilaabay beegsigii hore loogu yaqaanay ahaa dilalka qorshaysan wariyaasha shirqoolada ay u geysanayaan iyo arrimaha ku saabsan in la dhibaateeyo wariye kasta oo ka raa'yi dhiibta arrimaha waddanka ka taagana falkaasina haddaan nahay bahda warbaahinta waan cambaaraynaynaa bal markaan la hiiraan ayaan aadinaha wararka halkaas ka imaanaya waxay sheegayaan in dagaal culus maanta uu dib ugu qarxa deegaanka iyo Soomaaliya oo soo degmada Buulburte ka u dhaxeeya ciidamada hubanta iyo kooxda Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii xoogga Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen faysimada ciidamada dowladda iyo kuwa markaasi maleeshiyaadka iskaashanaya ku leeyihiin dagaal halkaas waxaana saasi ku qarxay dagaalka oo haatan ka socda deegaanka iyo Soomaan ee gobolka Hiiraan iyo dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in labada dhinacba ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana xaaladdu ay tahay mid aad u kacsanaa macadda khasaaraha ka dhashay dagaalka mana jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan halkaas wararka ayaa intaas ku sii daraya in Al-Shabaab ay ku soo dhawaadeen deegaankan balse weli dagaalka ayaa socda iyadoo ciidamada hubanta ay dhankooda difaac ay ku jiraan iyo Soomaan ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab kadib howlgallo culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan bal markaana haddii aan eegno saaxiibayaal caafimaad taamaha Allah siiyay doctorkii weynaa Dr. Xabeeb oo maciinihii dadka dhibaataysnaa u gargaarihii dadka masaakiinta daawayihii oo kuwa markaas xanuunada kala duwan qabe si gaar ah xanuunka dhimirka ayaa maanta u baahan caawimaad iyo gargaar in loo fidiyo Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb oo magac dheer yahay oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee caanka ayaa maalmihii u dambeeyay xaaladda halis ku wajahaya magaalada Muqdisho sida uu shalay warbaahinta u soo bandhigay Dr. Xabeeb oo in ka badan 40 sano si bilaash ah ugu shaqeynayay bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa soo food saartay xaalad caafimaad u baahan in degdeg markaas wax lagu qabto bishii hore waxaa isaaray buuri iskaan waxa uu muujiyay inuu markaas dhiigbax ku yimid mid ka mid ah xubabka maskaxda daboola
aniga waa yeel aan ahay maskax dhiig ku furatay inaysan sahlin wuu dareemi karaa qof kastoo bini'aadama ayuu yidhi. sidoo kale wuxuu uu dalbaday dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay u fidiso gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa taas oo wax loogu qaban karo xaaladda la soo dirisay dhakhtarka caafimaad allaha siiye. haddii uu madaxweynihii ii qiray in aan ummaddan u soo istaagay waa in anigana maanta garab siisaan walaalaha soomaalida iyo dowladdeedaba ayuu yidhi doctor xabeeb oo warbaahinta la hadlay isagoo markaasi ilmihiisu ay ilmigii ka muuqatay. doctorka ayaa ilmeeyey xaaladda caafimaad darro ee la soo diristay doctor xabeeb ayaa la ilmeeyey xaaladda caafimaad darro ee la soo diristay isagoo oo sheegay inuu ku jiro waqtigiisii ugu adkaa ee noloshiisa. dhakhtarkan ayaa mudan inay dowladda markaasi ay si degdeg ah ugu garab istaagto wax ka qabashada xaaladiisa caafimaad oo laga deerinayo. waxaa xusid mudan in madaxweynaha hadda talada dalka jooga xasan sheekh maxamuud oo hadda ka hor ugu marag kacay oo qiray shaqada nafurnimada leh ee doctor xabeeb usoo qabtay bulshadiisa Soomaaliyeed. doctor xabeeb waa nin aad iyo aad u qiimo badan, waa nin dadka Soomaaliyeed usoo baxay duruufo adagna ugu soo shaqeeyey. wuxuu ka mid yahay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo istirtay oo u istaagtay dadka intiisa badan ee loo jeedin u istaagay ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo kal hore u qiray shaqadii adkeed ee dhakhtarkan uu u qabtay bulshadiisa Soomaaliyeed. doctor xabeeb ayaa haatan waxa uu ku jiraa xaaladiisii ugu adkeeda. allaha caafiyo annagana waan u duceynaa. weli waxaad daawanaysaan qeybihii dhexe channelkeena daawadeen haddii aad nagu subscribe noo saar gambalelkana furo una sii sheergareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like-gan inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. markaana dowladda Soomaaliya ayaa si bilaash ah xayeysiimo iyo markaasi buunbuunin ayadaba ugu samaysay xilli warbaahinta ay ugu digtay. taasi ayaa ah mid cajiib ah oo dadka ay la yaabeen. tani markii uu bilaaday kacdoonka dagaalka al-shabaab ayaa waxaa dowladda qaadaysaa tallaabooyin kala duwan oo lagu xoojinayo dagaalka lagula jiro al-shabaab. go'aamada dowladda federaalka ee badankooda ka dhanka al-shabaab ayaa hadda waxa uu go'aankii u dambeeyey wasaaradda isgaarsiinta ay ku xirtay warbaahinta internetka al-shabaab ka dhalatay saameyn aan wanaagsaneyn. wasaaradda ayaa baahisay warqad toos ah oo ugu socotay shirkadaha bixiya adeegyada internetka waxaana ku dhifqanaa magacyada mareegaha ay isticmaalaan al-shabaab kuwaasoo inta badan bulshada Soomaaliyeed aysan badankood horay u aqoon. shaacinta magacyada mareegaha warbaahineed ee al-shabaab ayaa waxa ay falanqeeyaashu rumaysan yihiin in uu ahaa go'aan lagu degdegay islamarkaana suuqgeyn lacag la'aan ah u noqday al-shabaab. waxay qabaan falanqeeyaashu inay ahayd in dowladdu ay bulshada la socodsiiso keliya in la xiray mareegihii warbaahineed ee al-shabaab si hoosena ay magacyada mareegahaas ugu gudbiso shirkadda ay markaas ku amrisay xayiraadooda. dhan kale dhammaan mareegahaas ambarahaasi ayaa ka xiran keliya Soomaaliya waxaana laga akhrisan karaa caalamka oo idil. waxaana suuragal ah in tallaabadii ay qaaday dowladda ay barahaasi bartay dad badan oo qurbo joog ah. waxaa la gudboon dowladda inay si aad ah ugu fiirso inay dhinacyo badan ka eegto saameynta ka dhalan karta go'aamada ay ka soo saarayso maadaama uu dalka u jiheystay dagaal ka dhan ah al-shabaab. waxba kuma jabna go'aanka lagu xiray barahaas balse in magacyada la faafiyo ayaa ah markaasi laga wanaagsanaa taa oo inta badan falanqeeyaashan ay u arkeen qalad iyo tallaabo weyn ee dowladda federaalka ay gashay oona u baahnayd in shir hoose laga yeesho arrintaasi. wararkii waaweynaa Soomaaliya caalamka aad kala socotaan channelkeena daawadayaal waa naginta.